حسن وحو كبحايا ماشي اللي يراهدو كينيا horta Kenya anigu maba qababa xiriir hala la sameeyo hatta haduu qof kale yimaado sababtoo qaad bayna ku soo daldalaysaa madaxweyne kastana wuxuu leeyahay kalluun hal geeyo oo kalluunka hadda Kenya miyaysan naga guran waayada badeena naloo xukumay haysatee walaalayaal maxaa la isu indhatiraya kalluun intii la doono bay jariifanaysaa oo xaasidnimo waxa weeye u isticmaalaysaa kalluunkeena marka waxaan qabaa madaxweyne xasan inuu ka digtoonaado arrintaas waa arrin qarannimada dhaawac ku keenaysa iyo Soomaalinimada in maalin kasta loo dhaho kalluun hal geeyo annagana maalintiina la ka faa'iido 200 milyan wax iskeenaysa maaha waxaana filayaa inuu ka baaqsan doono sababtoo ah ninka uu hadda u socdo waa nin sida uu aftaag sheegay ay uga dhiman tahay xilkiisa 4 asbuuc laakiin hadduu aado waa waxa weeye timir laf baa ku jira wax kala loo sheegay ma waa ka baxay laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa safarada xasan mid waxba laga faa'iiday laakiin inta kale wax laga ma faa'iido daan runta ka wada hadalno qaar waa kuwa uu isbariyeelayo qaarna waa kuwa uu dadkii ku dadaalayo xilka soo saarsaday ugu tagay oo mashxarad la doonto anigu waxaan ka jeclaa safaradiisa inuu horta bal marka hore dawladdiisa dhisto markuu dawladda dhiso wax walba waxa ka muhiimsan dalka in marka hore dalkeena spacekiisa hoose la dhiso kadibna meelaha daadku inagaga imanayo la iska mooso meelaha aan jeclaa inuu ka bilaabo waxay ahayd Ethiopia sababtu tahay Ethiopiyada xuduud dheer baynu la leenahay inta maamul goboleeda ee ka samaysan Soomaaliya kulli xad bay la wada leeyihiin Somaliland Puntland maxaan ku idhaahdaayay Galmudug Hirshabeelle maxaan ku idhaahdaa koonfur safarada badan xasan sheekh maxamuud waxa ilaa hadda soo kordhiyay ciwaan aad u wanaagsan runtii weeye ما ها إن سبيس كستلا سجله سبيس كمرك هتجلسه عوام كانوا يسوي شيء توي وواحد وناكسم وي إن لقى هذا حسن شيخ محمود حتى سفرة أوجاي لما أنتوا خرج باكو بحي ملايين تذكر إنه وقع شون يا وسفر وح الله يوحي سكر لنا يا أنا كرين أكشلي سفرة أوجاي ودن كان إلهاني يسكر ديه قاركود أمينتودا بدن lacag baa la kharash garanayaa fara badan dadkii baa abaar haysa waxa weeye macluumi baa jirta waxa jira sixir barar baa jira gurihii wasiirada lama soo magacaabin diyaarad buu saa u saanay waa dhaqan u lahaan jiray oo hadda sii laba jibaarmay haddii 40 maalmood gudahood uu 6 safar dibad iyo gudaha galay markaa imisa haray safar 400 safar soo maaha anigu waxaan aaminsanahay runtii in waddankeenu maanta uusan qaadin ilaa xukuumad la soo dhiso xukuumaddu ayadu safar samayso wasiirka arrimaha dibadda meelaha soo marmaro in madaxweynihii waddanku uu waxa weeye diyaarad u saaraado ma ogtiin kharashaad ku baxa madaxweynaha Mareykanka adduunka ku baxa waddanka joonaya oo silcaya oo dadkiisi baahan yihiin oo biiraan yihiin in 40 maalmood gudahood 6 safar uu sameeyo madaxweynihii waddankaasi anigu waxaan u arkaa wax runtii aad looga naxo waa wax runtii anigu waan arkay laakiin cid ka hadlaysaan waay oo arki waay mawduuc aad wanaagsan weey waxaa la sheegayaa 7 cisho soo socota inuu u safray dhowr wadan oo kale lacagtan uu ku safrayo kharashaadkan uu burburinayo waxaan xagee uu ka keenayaa miyaan ku wanaagsanayn inuu dadka masaakiinta ah gaajoonayo iska daa wax kale fila Soomaaliya qaarkood u jiraan wax ka yar 1 kiiloomitir inuu biyo iyo u siiyo waddanka sixir bararka adduunka annagoo iminka Ameerika joogna baa sixir bararka yaaban inflation heerku maray Soomaaliya waa sidoo kale ka badaran ganacsatada waxaa joogta man xayaala
oo markay maqlaan sixirkiiba iyo gaaskiiba qaaligaroobay afar jibaar saaraya waxa weeye maciishadii war anigu waxaan isleeyahay meelahaasaa kaga habboonayd kharashka waxa weeye uu ninkaasi ku safrayo intaasaan kusoo gebagabaynaya dhex mari karaa labada qof hadda maxay tahay waa dawlad sii dhacaysa iyo dawlad cusub waxa muuqda waxyaabo badan oo faashil ah muuqda ilaa al'aanka maanta waxa weeye 52 days bay maanta tahay haddana 53 ahayn wasiirka koowaad waa magacaaban wasiiradii kale lama soo dhamaystirin كل واحد قبانو أفرتاس صنع نوع كوشرين أفرتاس صنع حسن شرميش فرديو إنه نوع كوشرين قبانو وحنا عن كلا سعونين أما هم كده هذا يسوق قبوا وحي على فهنسرين أنا مش دولة دي كشرين تهلس كي يعاون دوي عض هاي ولا أوكي سفير وقفان وصو طبعا هذا سمع waxaan inii sheegayaa qof walbaaba waxa uu xor yahay afkaartiisa iyo aragtidiisa inuu cabiro qof lagu caburinaya ma jiro laakiin waqtiga bas inoo soo kooba muxaafid ahaw mucaarad ahaw waxa weeye moderate ahaw afkaartaada cid kuguma caburinayso laakiin waqtiga inoo soo kooba mayga iniga iskale aniga inigama soo dhexgelayo codkan baan inii qaybinayaa dooda waxaan meesha u saarnana wax la isweydiinayo inay tahay bay muhiim yani wax la isweydiiyey inay tahay ayaanu aragnay oo waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed hadayse isweydiinin wax reality-ga wax badan ba dayacmaya marka anaga su'aasha waxaan u keenayna waxa weeye safarka ma laga maarmi karin mise waa laga mise muhiim buu ahaayo ajendayaal waaweyn lagu soo guuleystay oo waxa weeye dalka waxba loogu soo taray intaas weeye su'aasha meesha taala waa laga wada dhawaajiyay madaxweynaha safaradiisa madaxweynaha marka asaga la doortay 3 bari uu haystay ra'iisul wasaare inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare waa soo magacaabay ra'iisul wasaaruna 30 days buu haystaa maaragtay waxa waaye inuu soo magacaabo xukuumad soo marka always safarada marka madaxweynuhu uu baxaayo madaxweynuhu saas sheegteen ba mid ma ahan ummadaha kaleeto muxtaar baa ka dhawaajiyay qarashka iyo expense iyo costiga waxa ku baxaya haddana saas ay tahay markuu madaxweynuhu uu safraayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha qaranka dastuurka iyo dalka mataqaan shuruucda u tahay haddana saas tahay waxa looga baahan in mataqaan golihiisa wasiirada ama arrimo dibadeed ha ahaado haddii laga soo hadlaayo ama arrimo maaragtay muxuu ahaa amni ha ahaato ama arrimo in maaragtay golihii wasiirada oo shaqooyinkaas ku lahaa maaragtay inuu la socdo hadda safarkii turkiga oo kaleeto dad aan xilal hayn oo garowa online mataqaanaa nala fadhiyay laakiin dawladdiisii hore wasiirka ka noqday baa la socday taamiins waxay ku tusaysaa intii qof Soomaali oo qaranka u shaqeynaya oo xil hay oo wasiir ah qarashka lagu bixin lahaa ya inay maaragtay waxa waaye ka haboon qofka lagu bixiyo inay ka haboonaan lahayd qof noocaas maaragtay oo xil wasiir ah markaan waxaan ilaa safarada madaxweynaha horta aad buu qaarkood ugu degdegay hadda electric oo kale to maaragtay la filayay shacabku waxay sugayeen in madaxweynuhu uu hadlo wixii propagandada ahayn ummadda maaragtay si niyad degan oo la hadlo ugu tagay madaxweynuhu soo noqday waxa waaye kulay shalay waan arkeen dad yar oo group maaragtay la kulmay ilaa hadda wuxuu meesha kala soo kulay madaxweynuhu si fiican shacabka muxuu galama hadlin marka waxaan dhihi lahaa aniga waxa waaye safarka hadda Kenya oo kaleeto Kenya xilli kala guuray muxuu ahaa bay ku jirtaa Kenya bisha hadda soo socda 9keeda la dooranaya election already ninkan waa dardaarmay safiiradii uu la kulmay maalinka dhaweydna wad arkayseen meel ku dhimay Soomaaliland buu ku casuumay marka horta ma hubo inuu aaday hadda anigu mar dhow wili carada aad uma fiirfiin laakiin waan maqlay safar Kenya inuu madaxweynuhu ku baxay hadduu ku baxay ama uu balan gareynayo waa safar laga baaqsan karo oo dawladda cusub oo Soomaaliya inay maartay waxan aad bay maartay u wanaagsanaan lahayd Kenya waagii Xasan Sheekh Maxamuud horena waa la ogaa haddana Farmaajo waa la ogaa heshiisyada ay galeen labadoodii midna waxba kama caana casaan marka madaxweynuhu inuu golaha wasiirada yani muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu soo dhiso ka bacdina wasiirkii dee matalayay oo hadday noqoto xiriirka caalamiga wasiirku dee madaxweynuhu markuu madaxweynaha la kulmo haddii laga hadlayo arrimo gaashaandhig in marka ilaa hadda waxaan aragnaa anigu markaan qiyaasay conclusion aan ku sameeyay sawiradii maalinka dhaweeyay la soo qiimeeyay oo electric aan arkay madaxweynuhu still campaign buu ku jiraa arrinta uu wado maaragtay waxa waaye arrin waxay u egtahay campaign ahaan ah uma eka madaxweynuhu nin guuleystay oo shaqadii maaragtay dalka u taalo oo xilliga mataqaanaa nin shacab oo kula safri lahaa oo waliba asagoo private church muxuu ahaa coffee ku cabayo soo dhigay Twitter kana wada aragteen baa laga yaabaa
nin garow online daadiinay yaa waftiga madaxweynaha turkiga ka mid ahaa qarashkaas xagu ka imaaday dad baa waxay leeyihiin waxay Soomaalida waan ogahay waxa madaxweynaha loo soo diraa diyaarad wadanka diyaaradda ku soo diro freega maxay tahay benefitkiisa ujeedadu uu naga leeyahay maxaa waay muxuu naga ramaa yaa maxaan ku bedelanay yaa marka safarada madaxweynuhu asagoo hadda yani 60 bari aan gaarin 60 safar uu safray si la sheegayo kuwa badan oo laga baaqsan karaa maxaa ku jira in golo wasiire la soo dhisnaa aad bay u qurux badnaan lahayd sifa maartay wasiirkii tagadaas qaabilsanaaya madaxweynuhu maartay always isku raacaan madaxweynuhu dee heshiisyada asagu gaar ma taqaanaa waxa way gooni ah haddii noqoto in wasaaradda arrimaha dibadda laga hadlo wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga waa in wasaarad kasta maartay dhigeeda maartay sifa loo helo saas ay qurux badnaan lahayd dee talada dalka madaxweynuhu asaga haya 10 baa dhahay 100 buu baxaya laakiin aniga aragti ahaan waqtiga hadda la joogo waxa ay soo kordhisayna ma arko wax badan oo hadda ay soo kordhin ka dhana ma arka dal yani electionka caleema saarka markuu ka qayb galayo inuu waxa uu Kenya kala hadlo haduu aadayo macala waa haduu aaday waaye waxa weeye safaradii hadda uu galay xasan sheekh maxamuud wax ali wax laga faa'iido garan maayo xabad laga ma faa'iidin kharash burburin baa laga faa'iido iyo wadankii waxa weeye baahi iyo abaar iyo macaluul iyo sixir barar hay ku jiro buu iska saf diyaarad buu saaray xukuumad ma jirto bal ma ku mashquulo inuu intuu prime ministerkii uu magacaabay wasiiradana kulli isaga soo xulanaya way u qoran yihiin inuu wasiiradii magacaabo oo kuwan meelaha u diro war adduunka lama arag wadan saas oo kale Soomaaliya oo madaxweynihiisii isagoo 40 bari aan joogin 6 safar galay haddana diyaarad kala sii saaran oo aan ka badegay war kharash kan diyaaradda lagu saar midna ogaada dawlad u soo dirtay diyaarad ma jirto cidina diyaarad soo ma dirto وعد ديار قدرته وحسن كنت صوفوا ديارته ما شرته خرج كي قسنته وح انت يريدوا ماشي وقيمي الا اوريي وحو كنت مانيا waxa weey كنت مسرينيا anigu ma arka safar tabash aan u arkay dalxiis ma arka waan wuxuu dhaqan caado u lahaan jiray boojada bal hore taqaaneeri madaxweynuhu diyaaradaha uu jecel yahay diyaaradaha aad buu jecel yahay safarada faraha badan waa wixii waxaan aaminsanahay ilha yani dadkeena waa gaajoonaya waa baahan yihiin war abaar baa jirta adduunyadii oo dhan baa hadal haysa inaga og macluul baa jirta sixir barar baa jira adduunkii oo dhan baa la gaajoonaya la baahan yahay Ameerikayna saamaysay sixir bararkii gaaskii $2 gaalanku ahaa ba $6 sii maraya rootidii baa qaali garowday adduunka oo dhan eeg Soomaaliya oo aan garanay ganacsatadeedu oo dhigmiirata tahay waxa la ii sheegay kiishka bariiska intuu marayay sanadkii hore hadda laba jibaar buu maraya abaartii baa ka daran war lacagta madaxweynuhu ku safrayo ee safarku galaba uu dhowr milyan soo gubayo war miyaysan ahayn in meel kale la geliyo oo aan ku habboonayn haddii aan u soo noqdo mawduuca waan ka baxayaa safarada uu galay xasan sheekh maxamuud wax laga faa'iiday ma jiro khasaare mooyaane lacag burburis mooyaane waqti lumis waqtigeebu luminaya kharashkii lacagtu luminaya wax yani waan mawduucan aad buu soo jiitay waad mahadsantihiin raalli ahaada signalka iga dhumaya dad waxaan u soo diray co-hostiga marka soo walaal co-hostiga soo qabsada signalka aniga iga dhumaya waxa laga yaabaa khadka inuu iga dhumo signalka aad igu ciriiriya marka co-hostiga soo qabsada barnaamijkan ku socda waxa warsame gacanta u taagan tahay qofkii ku xiga asagana gacanta soo taaganaya marka mawduucana qof inoo soo kooba si aynu waqtiga hal mar iskugu filaysiino qof walba fikirkiisa uga dhiibto waana mahadsantihiin السلام الله عليكم دمان وادي ودا سلامي اخيارته موضوع ما ku soconay safarada badan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ku baxay wadamada dibadda ku aaday maxay hadda soo kordhiyeen ilaa hadda waxa muhiim ah in safarada la kala qaado safar kastaba si gooniya loo fiiriyo ani laba safar oo muhiiman arkay safaradii uu galay oo natiijooyin hor leh ay ka soo baxeen walow safarada uu baxay hadda ka hor xiriir la lahaa laba wadan
oo xiriidho wanaagsan ay xukuumaddii ka horreysay ee hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo la lahaa oo la soo jadiidiyey heshiisyadii oo si hor leh loo bilaabay in loo wada shaqeeyo ani waxaan aaminsanahay walow xog badan aanan ka hayn kii ugu horreeyay lagu tagay imaaraadka xog fiican oo buuxda kama hayn laakiin labadii dambe ugu dambeysay turkiga iyo kii ugu dambeeyay haddadan marka dhow ahaaye maalmihii iidda ahayd kusoo beegmay eritrea labadabaan waxaan u arkaa laba guulo ah qarashka iyo waxyaalaha ku baxaya aniga xaggaas ma fiirinayo laakiin miro dhalka umaan fiirinaya turkiga waa waddan keliya hadda maad garanaysaa inta ugu badan ee gargaarada iyo garab istaagga soomaaliya halka maad garanaysaa horumar ka ahaato kaabayaasha dhaqaale inuu maad garanaysaa ka caawiyo in uu amniga maad garanaysaa ka gargaaro waa wadamada maad garanaysaa is leeyahay muhiim ba u yihiin soomaaliya ahdaafta ay rajaynayso ay inay kaga baxdo dhibaatooyinkan ragaadsaday colaadda iyo dhaqaale xumada waxyaalo badan waxaan is leeyahay waxa u yihiin ciidaha maad garanaysaa wadamada maad garanaysaa strategic wise kaalmeynaya lafdhabarka u ah xiriiryada maad garanaysaa caalamka ay la yeelanayaan iyo iscaawitaanka la iscaawinay eritreana keegayga ku dambeeyey inta dadka badan waa ka dharagsan yihiin kaliya waxay fiirinayaan malaha dhowr ciidan oo naga joogtay ciidamada waa muhiim amniga ka qayb qaadanayaan balse laakiin eritrea iskaashi kale oo ballaaran ba maad garanaysaa qodobadii ka dhex muuqday haddaad fiirisid eritrea waxay ogolaatay heshiisyada ka mid ahaa diaspora dadka maad garanaysaa inay ganacsiyo la isweydaarsado dadkan maad garanaysaa qurbo joog iyo ciday doontaba soomaaliha waxay doontaba noqotay bulshada soomaaliyeed inay ganacsiyo ka abuuran karaan waxaanu ogsoonahay bulshada soomaaliyeed inay yihiin dad ganacsi ku abuuro wadamada kala gedisan ay aadaan kolka eritrean waxaan aaminsanahay waxay noqon kartaa hab meel lagu soo degi karo maad garanaysaa ganacsi laga yagleeli karo waxyaalo badan qodobo badan baa meeshaas heshiiskaas maad garanaysaa ku duugna oo muhiim ah turkigana waxaan jeclahay walow heshiiskeegu saxaafadda inta badan aan intaan ogahayaan ka arag balse laakiin aan aaminsanahay in heshiisyada la kala seexday turkiga iyo maad garanaysaa soomaaliya seexdeen inay ahaayeen miro dhal dhaqaalaha ku baxayo diyaaradda iyo maad garanaysaa bixitaanka maad garanaysaa safaradaas wax muhiimad ay keenayaan ma jiro waxa muhiimadda keenaya waxa weeye natiijooyinka soo dhalanaya haddii la isbarbar dhigo inay maad garanaysaa ay baxdo $100,000 iyo maad garanaysaa $50,000 natiijada ka dhalanaysa maad garanaysaa haddii ay keenayso wax $50,000 ka badan oo noqonaysa in Soomaaliya amni xaslooniya u keeno in ay Soomaaliya maad garanaysaa horumar hesho jidad hesho in ay Soomaaliya maad garanaysaa xagga caafimaadka maad garanaysaa hospitaalada maad garanaysaa laga caawiyo xarumo maad garanaysaa dhakhtarro maad garanaysaa tayala loo maad garanaysaa loo dhiso wax badan in dawladda nidaamka dawliga iyo haykalkeega laga caawiyo dhaqaale badan oo u baahan tahay ku shaqeyso kolkaas $50,000 iyo $100,000 lagu baxay safarkaas muhiimad ma keenay waxaan aaminsanahay waxa miro dhalka ah natiijadaas kolka labadii safarana waxa ii muuqday inay ahaayeen miro dhal waxaan rajaynayaa hadda safarka soo socda inuu noqdo safar ku aadi doono Ethiopia waxa muhiim ah inuu ahmiyadda uu siiyo aan aaminsanahay in Ethiopia ay tahay xiriirka ugu wanaagsan ee la yeelan kara maanta Soomaaliya wadan la yeelan karta inuu noqdo Ethiopia Ethiopia waxa weeye waa wadan in badan ku soo jirta siyaasadda Soomaaliyeed faraha ku haysay oo faragelin badan maad garanaysaa in badan ku haysay oo siyaasadeeda maad garanaysaa dhex socotay waxaan aaminsanahay madaxweynihii hadda ka hor joogay xafiiska inuu isbedelo ka keenay xiriirkaas oo xiriir dhaqaale oo ganacsi la yeeshay xiriir laba geesood oo maad garanaysaa ku salaysan is-ixtiraam wadajir iyo jaarnimo ku salaysna kolka waxaan aaminsanahay hadda haddii safar saddexaad afraad la baxayo waxa ugu muhiimsan in loo baxo safar Ethiopia oo heshiisyo maad garanaysaa ganacsi ha noqdaan heshiisyo siyaasadeed lala soo saxdo la cusboonaysiyo ku jiray waxna laga bedelo haddii maad garanaysaa waxyaalo maad garanaysaa ku jireen khadaaca
halka waxaan aaminsanahay aniga heshiisyadaas lala soo saxday dhowrkii wadan hadda mad garanaysa laba wadan uma hadda aanu arkay inta badan kan imaaraadka xog buuxda kama hayo haddii akhyaarta kale ka haysa akhyaarta kale nala wadaagi balse laakiin ani labadii ugu dambeysay hadda waxaan aaminsanahay inay guul ahaayeen guulo la soo hooyay Soomaaliyana mad garanaysaa saaxiibo mad garanaysaa hore ay la lahayd wadamadaas soo cusboonayso saaxiibnimadeedii halkaas waxaan aaminsanahay guulayna yihiin horena hadduu ugu socdo madaxweynuhu halkan Ethiopia oo xiriir la yeesho waxaan aaminsanahay inay galaangalka iyo mad garanaysaa khilaafaad ka dhex abuuran mad garanaysaa dawladda dhexe iyo dawladda Ethiopia galaangalka ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya oo inuu yaraan doonaan aaminsanahay inaas baan ku soo koobay aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay warsame aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawaada marka Mukhtaar waxaan siinayaa ninka la yiraahdo Odawaa uu soo dhawow dhawaay saaxiib you aad baan kuu salaamayaa adiga inta meesha ku jirtaba assalaamu calaykum safarada laga hadlayay kolleyba anuu update mahi gobol al-shabaab naga fakadaan raadintooda ku jira marka dagaal baaba meel kale aanu uga jiray safarada Xasan Sheekh Maxamuud hadda idinkaaba Kenya inuu tagay ka warramayo marka update gareeya hadduu Kenya tagay kolley filla Soomaaliyana waa soo fiiriyay beejkeedii ma oolin safar qarsoodiya muxuu yahay safarku xogta xagee naga soo gaaraysa xogta ما أدواء أنت كلا أصحابته ماشي كوجرتو ما أهان أو كليا سفر كينيا عاد أنا ما هو باين وبحي لكن ويجرت جدول كوي كوجرتا إنه كينيا هذه مدحوينه لكن وحن كهلا السفرة دي كسب بلو قل كفر قلبات قل مذوق إلا ماشي اللي هذا United Arab Emirates تركي إريتريا all those وحوي سفرة ده صردن madaxweynaha xilliga uu joogay iyo inta safar uu sameeyay yani macquul ma tahay oo wax islama yihiin ha ahaadee waxa ka soo baxay ma u qalmaan safaradii oo wax u qalmaa ma ka soo baxeen labadaas su'aalood inaan isdul taagno unbaa muhiimadu tahay maadaama dawladdii dhismaheedii ay muhiim ahayd hay'adihii dawladda kala duwanaa wasiiradii golihii wasiirada waxa weeye nidaamkii habayntii ciidamada maadaama dawladdii hore meesha ka baxday ciidamadii iyo xafiisyadii dhammaan dawladdu waxay noqonayaan transition period ay galayaan ka in lagu mashquulo oo la saxaso kama haboonayn iyada laftigeedu waa in isdul istaagno oo aan wax iska weydiin karno marka saas weeye ma aha safar Kenya kaliya kama hadlayno safaradii dhan baan si guud u dul istaagaynaa waxa ka soo baxay waxa faa'iido ah waxa khasaaro ah iyo wixii laga maarmi karay iyo inaan laga maarmi karin wixii ahaa ما هذا ku fahmay waa gartay midaas kulley badii madaxweynuhu wuxuu yiri Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la awiyo marka Soomaali heshiis horta marka ka tagno dunida heshiis la waxa weeye macnaheedu waxay noqonaysaa inuu bishiiba 5 safar oo dibadda ama 6 safar oo dibadda uu sameyn doono marka ninkan uu campaignkiisii buu soo galay badii waxa beed oo hadda uu asaari karo Marco waxyaabaha ay soo kordhinayaan inta kulli safaradu isku mid maaha hadda Turkiga iyo Eritrea iyo Imaaraad saddexda wadan oo hadda uu tagay oo sida cad u muuqatay isku mid ma ahayn wixii laga soo saxiixay way pointiyada muhiimka ah hadda Eritrea iyo oo 5,000 oo ciidan noo dhistay iyo Turkiga Imaaraadku wax badan bay kaga duwan yihiin sababtoo ah Imaaraadka hadda waxyaabaha uu hadda dhiilasha uu la galay waxa ahayd waxa macnaha noo soo kordhinayna asaga uu soo kordhinaysa markii la fiiriyo xeriyihii hore looga ceegsaday in dib loogu soo celiyo oo General Gordon ugu horeyso xeradaas oo ciidanka Imaaraadka siyaasadiisa ku shaqeynayay mushaarka ayuu siinayay dib loo soo dejiyo